laba qof ayaa ku dhaawacmay weerar gantaalla oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil. Wargeyska Israa'iili ee Haaretz ayaa sheegay in nin 60 jir ah iyo haweeney 50 jir ahayd ay ku dhaawacmeen weerar gantaalla oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil. Laba duqeyn oo cirka ah oo Israa'iil ay fulisay ayaa lala beegsaday magaalooyinka Qantara iyo Khabriqa ee koonfurta Lubnaan sida ay sheegeen wariyaal ku sugan goobtaas. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay dileen nin lagu magacaabo Murtaz Saruur oo ka tirsanaa cutubka hawada ee ururka Xisbullah kadib weerar ka dhacay agagaarka jaamacadda Lubnaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay soo rideen 56 daroon oo soo galay hawada dalkaas tan iyo aroornimadii Jimcada, waxayna ka mid ahaayeen isku dayo lagu doonayay in lagu bartilmaameedsado aagga amniga sare leh ee diblomaasiyiinta caasimadda ee Riyaad. Khamiistii fiidkii ayay wasaaraddu sidoo kale waxay sheegtay inay soo rideen 53 daroon isla markaana ay burburiyeen 5 gantaal oo balastig ah muddo 24 saac gudahooda. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro Israa'iil ay ku qaaday dhisme ay degan yihiin oo ku yaala magaalada Saydyuun ee koonfurta Lubnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee National News Agency. Weerarka dhacay xaafadda Al-Fuwaar ee bariga Saydyuun oo ah magaalo saddexaad ee ugu weyn Lubnaan ayaa sababay burbur weyn oo soo gaaray dhismo 5 dabaq ah oo ay degan yihiin. Laba qof oo meyd ah ayaa laga soo saaray burbur dhisme oo ku dumay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka fulisay magaalada Qaliil ee koonfurta Lubnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee National News Agency. Kooxaha difaaca madaniga ah ayaa weli ka shaqeynaya sidii loo heli lahaa dad kale oo ku maqan burburka hoostiisa. Wakaaladdu horey ayay u sheegtay in 4 qof la laayahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sri Lanka ayaa sheegtay in dalkaas ay dib ugu celinayaan Iiraan meydadka 84 badmaaxe oo Iiraaniyiin ah oo ku dhintay weerarada markab 9 maalmood ka hor ku quusay biyaha badweynta caalamiga ah. Badmaaxyadan ayaa ku dhintay markabkii dagaal ee IRIS Dena oo lagu dhiftay tornado 4 Maarso meel u dhow xeebaha Sri Lanka. Dhacdadan ayaa lagu tilmaamay mid ballaarisay dagaalka bariga dhexe ilaa badweynta Hindiya, waxaana sidoo kale la dhaliilay inay tahay xadgudubyo cad oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Tushara Rodrigo ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegtay in meydadka la celin doono maalinimada Jimcada iyadoo Iiraan ay soo dirayso diyaarad qaas ah oo arrintan fulisa. Safaaradda Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay in meydadka lagu celin doono dalkooda sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Rodrigo waxay intaas ku dartay in 32 badmaaxe oo ay badbaadiyeen ciidamada badda ee Sri Lanka ay sii joogi doonaan halkaas. Sidoo kalena waxay sheegtay in guddiga caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ay la xiriireen si loo caawiyo badmaaxayaasha dhaawacmay balse aysan ka qayb qaadan doonin dib u celinta meydadka. Maalin kadib markii markabka Dena la quusiyay, markab kale oo dagaal oo Iiraan ah oo lagu magacaabo Iris Bushar ayaa loo ogolaaday inuu galo biyaha dalka Sri Lanka. Sri Lanka ayaa sheegtay in markabka iyo shaqaalihiisa oo gaarayay 219 qof la siiyay meel ammaan ah oo ay ku sugnaadaan. Mas'uuliyiinta Sri Lanka ayaa sheegay in aan weli la bilaabin wadahadallada ku saabsan dib u celinta shaqaalaha markabka Bushar iyo badmaaxayaasha laga soo badbaadiyay Dena, balse ay ula dhaqmi doonaan si waafaqsan heshiisyada caalamiga ah ee lagu saxeexay Colombia. 32 ka mid ah badmaaxayaasha la badbaadiyay oo isbitaal la dhigay, 22 ka mid ah ayaa hadda laga saaray isbitaalka, waxaana lagu hayaa saldhig ciidamada cirka ay leeyihiin oo ku yaala koonfurta jasiiradda. Badmaaxayaasha guud ahaan ay badbaadisay Sri Lanka ayaa hadda noqonaya 251 badmaaxe oo Iiraaniya. Dowladda Sri Lanka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ciidamada Sri Lanka ay gacanta ku hayaan markabka ay lahayd Iiraan oo mid ka mid ah matooradii labada ahaa uu ka soo gaaray cilad saarayo. Markab saddexaad oo Iiraan ay leedahay ayaa isna dhaafay biyaha Sri Lanka waxa uuna galay deked ammaan ah oo ku taala magaalada Kochi ee koonfurta Hindiya. Shaqaalaha markabkaas oo gaaraya 183 qof ayaa hadda ku jira gacanta ciidamada dowladda Hindiya. Maamulada Colombo iyo New Delhi ayaa sheegay in ay hoy siiyeen badmaaxyada Iiraaniyiinta sabab bini'aadantinimo awgood iyagoo ka cabsi qabay in iyaguna ay ku dhintaan weerarada Mareykanka. Korneyl Faransiis ah oo lagu magacaabo François Xavier de Lefchesnay ayaa sheegay in daroon Iiraaniyiin ah oo nooceedu yahay Shahiid loogu adeegsaday weerar ka dhacay gobolka Arbil ee Ciraaq, kaasoo lagu dilay askari Faransiis ah isla markaana lagu dhaawacay askari kale. Askari Faransiis ah oo 42 jir ah oo lagu magacaabo Arnaud Firiorne ayaa lagu dilay weerarka daroonka Shahiid sida uu sheegay korneylka la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Waxa uu noqday askarigii ugu horreeyay oo Faransiis ah oo lagu dilo colaadaha hadda ka socda gobolka Bariga Dhexe.